booliska ayaa baadigoobaya gabar lagu magacaabo Naciima Maxamuud oo sawir ay calanka Soomaaliya ku labisan tahay lagu arkay baraha bulshada. Okay, waa Hargeysa. subax kale cusub, subax kale jadiid, maalin kale qurux badan, adoo caafimaad qabi anagu caafimaad qabna daa soo laaban horta si alxamdulillah. qul alxamdulillah, dheh alxamdulillah. wax walba waxa ka muhiimsan waxay tahay waa caafimaadkadi. alxamdulillah dheh. waxaan rabaa marka muuqaalkan inaan uga hadlo laba arrimood oo wixii cusub uma sheegna mugta Facebook qabsaday saaka ilaa shalay. midda koowaad waxay tahay gabar iyo wiil ku labisnaa iskuna sawiray calanka Soomaaliya ee buluug ah kan oo lagu xiray Hargeysa. waa wiil iyo gabar. Okay, waxaa la soo dhigay page Facebook calanka buluuga, calanka Soomaaliya ayay isku sawireen. Soomaaliland waana lagu xiray. Okay, gabadhii wiilka waa la xiray laakiin gabadhii hadda dartaan booliska raadinay. wax yar idin la akhriyo muuqaalka intaan u guda galin iyo qaybtiisa kale. qoraalka waa sawir gabadha waa u jeedin sawirkeeda intaan soo saaraya. burco ay ka ku qoran dhib malahan. ciidanka booliska ayaa baadigoobaya gabar lagu magacaabo Naciima Maxamuud oo sawir ay calanka Soomaaliya ku labisan tahay lagu arkay baraha bulshada. Okay, waa Hargeysa. burca ku qoran kulli meesha Hargeysa waaye sidaan maqlay. gabadha waxay isku sawirtay calankii, waxay soo xirtay dirac calanka Soomaaliya, waxay soo qaadatay laba buufin waa taqaanin oo marka dabaaldeg ah oo buluug iyo cadaan ah oo u dhigma buluuga calanka kan iyo xidigtaas u dhigma. dhanka kale Bashiir Haruun oo ah wiilka sawirka ka qaaday Naciima isna buufinkaas isku sawiray ayaa xalay xabsiga loo taxaabay. iyaarka asagana uu isku sawiray, gabadhana sawirka ka qaaday ayaa xabsiga loo taxaabay. dalakh liinta yaa loo sokoray. wiilka asagana waa kaasa sawirkiisa waa ujeediin. wiil lagu magacaabo waa kan asagana wiil lagu magacaabo Bashiir Haruun oo isku sawiray buufin buluug ah iyo mid cadaan ah asagoo madaxa ku xiran calanka Soomaaliya ee buluuga ah ayaa goordhow xabsiga loo taxaabay. waxaana lagu eedeynayaa inuu Soomaaliya u dabaaldegayo wiilka. Okay, waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho horta. Soomaaliyay horta Muqdisho waa sax. Somaliland xaflada loogu qabtaa, calankeeda meel walba la suraa, gaari bajaaj ay suran tahay xataa waa arkay. Okay, laakiin reer Somaliland waxaa leeyahay dadkan oo kale waxaan isku soo aan raadisa u aqaan horta wadada ugu fudud hadaa Hargeysa joogtid aad ku caanbixayso horta waxay tahay calanka buluuga isku sawir magaalada sax mar kan la soo qaaday bis waa lagu qabanayaa. waa intaas caan ku tahay adigna xogaa liina soo cabay sokor baa lagaaga daray ama yaa lagaaga darinay. de meesha horta niyo nidaam ka jiro, system ka jiro. maanta qofka duu ku dhaw waxaan ma ka soconayaan inta ha keenin de uga leexo. hadaa rabtid meelaha kale ku xiro, haddii wixii aad jibisid oo sharci ah haddii lagu xirana de adaa qalad kale. maanta gurigaan aad leedahay tusaale ka soo qaadaan dhinac negative kan ka fiir positive ahaan u fiiri fikradeyda ka dhibtaan mugta. gurigaan maanta ana iskale qofkii marti oo ii imaadana koobkaygaas ana iskale ha iga isticmaalin. guriga soo gal wax yarta isticmaal oo koobkayga sidoo doono u isticmaalo. de talaabo sharciyan ka qaadaya Soomaa. marka Somaliland haday dhahday anaga siyaasad shaqo kuma lihin. Somaliland haday dhahdaan ku dhahay oo reer Hargeysa haday dheen calanka buluuga ma lagu xiran karo meeshan qofkii ku xirtan waa xabsi. de walaalo hadaa ku xiratid de sharciga jibisay Soomaa oo meesha ka jiro. hadaadan ku xir hadaa rabtid inaad xiratid meel kale tago ku soo xiro. hadaa maanta Muqdisho calanka Hargeysa ama calanka Somaliland lagu xirto la xiraynin de systemka meesha sidaas ah. marka aniga waxaan kusoo koobayaa
qofka wixii idhaaf ku dhaho gurigeyga iga dhaaf uga dhaaf, haddaan uga dhaafi karinna dee wixii adiga amutaysatid ama lagugu xiro hadhow waa soo qaylin kow intaa ugu baxna. hadda waa arkay dhalinyarada badanaa caan ayay ku rabaan. horta waa dhul Soomaaliyeed, dhul Soomaaliyeed waaye. calan walba in lagu xirto dhalinyarada isdhex galaano wax walba lagu sameeyo way wanaagsan tahay, way qurux badan tahay. sida hadda meel walba aad tagtid, Muqdisho haddaad tagtid calanka Soomaaliland waa ku xiran kartaa. dhalinyaro badan oo Muqdisho kasoo jeedo calanka Soomaaliland gacanta uga xiranaa jirto, kulli waa buuxaan. okay, inay saas ahaato waa rabnaa Hargeysa, laakiin hadday ayaga dhaheen nidaamka xukuumadda systemka meesha ka jira hadduu dhahay lagama xiran karo meesha aad ku nooshahay, dee meel laga ilaa haddaad tagtay isha Australia fikradeydan ka dhiibtay wixii dhaaf lagu dhaha dhaaf, haddaad dhaafi karin dee meelo kale tag ka tag ee meelo kale ku xiro ama xabsiga ama sharci ganaaxi ku qabto hadiidan dee intaa ugu baxaya. waxaa kaloo rabaa muuqaalkan inaan wax yar uga dhaho. ayaantan waxaa soo badanaya guurka gabdhaha yaryarka oo odayaasha guursanaya iyo maamooyinka yaryar waaweyn oo wiilasha yaryar guursanaya. gabadhan waa 17 jir, odagaana waa 67 jir, 50 sano u dhaxaysa gaabe sida meesha lagu soo qoraya. 17 iyo 67 meeqa u dhaxaysa 50 sano ayaa u dhaxaysa. war ama xisaabta qaldo asta wili la soo qabtaa. xamdi oo ah gabar 17 jir ah ayaa Shabeellada Hoose kula aqal gashay saygeeda oo ah 67 jir. odaga markuu sii jeedo fiyooraha dhiibayo romantic yahay dhinacan oo cilaanka u marsan yahay koofidaas uu taabay u eegay horta mid maraka shaqay mugta odaga saac mar meelahaas u qarab buu oray ragow wallahi bilaay dharkaas madowga wata cilaanka iyo koofidii wallahi aabay inta taagan u eegay markuu sii jeedo. marka waxaa isna maray war Maxamed saac malalay musayga saas kuma ogeeyna xagga goormo tagay. gabadhan ayaa sheegtay in ninka aysan ku raacin lacaga, wax lacaga kuma raacin bay tiri. way hadashay, anaa doortay, anaa jecel. gabadh ugu horreysay oo dhahday waa ma ahan aabeeda ku qasbay, si positive uga hadlaynaya, hooyadeeda ku qasabtay maahan. way faraxsantahay markii fiyooraha sawirka la galayso oo dhaxda ka heesto romantika jacaylka lisku duduumay oo u dhiibayo giftiga sawirada saa u jeedinba. way faraxsan tahay oo happy waay. guurkana sideeda baday ayadu ku faraxsan tahay. age is just a number. ama beesa ku raacdo ama jacayl ku raacdo 50 sano horta nus qarni gaab yar ma ahane. waxaan leenahay horta hambalyo reerkii lagu nastay lagu nagaaday wada jireen nabad gala. allah yo idinka yeel. Soomaaliya nahay commentiga saan ma loogu jafin. dibaddu ku yimid uu dhoofin rabaa, lacagay ku raacday, kambay ku raacday, gaas bay ku raacday. jacayl ma ahani laakiin ayadu waxay tiri jacayl baan ku raacay. waxay sheegtay inaysan ku raacin lacag balse ay iyadu jacayl xadaafa oo saygeeda cusub u qabto ay ku raacday. qofka weyn ayaa ku dhaqi kara. ayada day faraxsan tahay. aniga waxaan fiiriyaa aroos walba markaan ka hadlayo tusaale maalmaha ma aroos ka hadlayno body language gabadha day faraxsan tahay ninkii uu faraxsan yahay waxaan leenahay hambalyo. laakiin gabadhan murugo ka muuqato ama ninka xoogaa wax ka muuqdaana dee waxaan leenahay gabadha waa la iibsaday. reerkow ka dhaaf odayaashan yeelada soo daalay gabdhaha ugu dareysiin. hadday bees ku raacday, hadday dhoof ku raacday, hadday dibad ku raacday dee adduun weligeeda la isku danaysan jiro. adduun weligeeda la isku danaysan jiro. gabdhaha caytamayo ku hayo lacagay ku raacday, baasaboor ay ku raacday, dhoof ay ku raacday dibadda. maanta adoo Afrika jooga is wada ogyahay wiili gabarba qof qarashkiisa wato nin ha adabnaagaado qurbaha ka yimid oo laga yaabo birka maalin rajo inuu ku wado lacag saas kugu daadiyo oo wax xarabta ku siinayo jaaniskaas ma diid leed may. gabadha loo daayo dooqeeda, loo daayo dooqeeda. dadkan kalena badanaa waxaa la jafo waxay tahay odayaasha markay gabdhaha guursadaan maaha. waxaa la jafo maamooyinka waaweyn wiilasha yaryar markay guursadaan. maamooyinka nafley waaye. ninkay ilmaha usoo dhaleen hadday isfahmi waayeen oo laisku soo buuqay oo la kala yaacay dee macnaheeda ma ahan haddii ninkaas isfahmayeen adduunkooda dhan inuu dhammaaday may. maamada nafley waaye, abo nafley waaye. chickenkaasay cune, jibsigaasay cune, cabitaankaasay cabe, juuskaas kala nooca mushakalka ah dee xasaasiyadda ku kacaysa. dee xasaasiyadda hadday ku kacdana xaaraan may gale may.
اللي ودي ويلير اي راسته يقرش كذا كفوش ebo marna waxaa waaye waa yartoo dhalinyaro waayo geedkaaga saarantay marna jeebkaaga saarantay adduunka mintaas waayo mar geedkaaga saarantay marna jeebkaaga saarantay bes odayga hadduu jeebkiisa kore maamadan ay xoogaa ilmihii u koreen oo odayga isfahmi waayeen oo isnaashnaashtay oo khatar iska dhigtay jeebkeeda ay saarantahay wiil yar oo ka jafo ay rabtaa ha laga leexdo dadkan kale calamada buluuga meelaha isku sawiraya hargeysa meelahaasna mamnuuci ka tahee walaal hadaada xabsi rabin dee tagin dacaan doon tahayna dee samey bye bye